muuqaalkeena maanta waxaan kugu tusi doonaa qaabka aad u samayn lahayd geometric shape-kan ama pattern-kan circular-ka qaabka aad u samayn lahayd ayaan kugu tusayaa. magacaygu waa Cabdifataax Maxamuud, channel-ka daawanaysa Sulub Graphics. fadlan haddii aad channel-ka cusub tahay subscribe noo saar, baallad qabto comment-ka hoose noogu reeb, muuqaalkana like saar insha Allah. marka haddii marka hore saan iska bilaabano waxaan tegayaa file, kadib new baan dooranayaa. new markaan doorto waxaan iska soo furanayaa 1080 by 1080 file, kadib halka waxaan iskaga qoranayaa circular pattern baan halka iskaga qoranayaa, kadib create baan leeyahay 1080 by 1080. markaan qaabkan soo furto waxaan sameynayaa inaan soo doorto circular ama ellipse toolkaan soo doorto, kadib waxaan sameynayaa inaan shift la qabto iyo alt, kadib aan saas soo weyneeyo intaasaan ku deynayaa. kadib waxaan sameynayaa centerka inaan dhigo ano alignment ka isticmaalaya, kadib waxaan sameynayaa pen toolkaygaan soo dooranayaa, halkaasaan imanayaa dhinaca ah, kadib click baan leeyahay, saasaan halkaasoo kale aan geynayaa. waxaan qabanayaa click baan haddana halkaa leeyahay, shift baan yara qabanayaa, saasaan u yara qalloocinayaa markaas si ay u yara qalloocato. aan sii deynayaa markaa shape-kaasoo quraan u baahanay inaan samaysto marka hore. kadib waxaan sameynayaa inaan shape-ka doorto, waxaan dooranayaa, waxaan tegayaa rotate toolka markaan tago ayaa waxaan imanayaa centerka seerka shayda ayaan imanayaa. kadib waxaan sameynayaa anoo alt xijinaya ayaan click odhanayaa. click markaan idhaahdo wuxuu ii soo saari doonaa rotation angle-ka. kadib waxaan gashanayaa halkan 5 positive baan gashanayaa. kadib haddii aan imika preview idhaahdo waxaad arkaysaa 5 degree ayuu wareegaya. markaa waxaan leeyahay copy baan dooranayaa. markuu qaabka ayuu kala koobiyeeyo ayaa waxaan sameynayaa inaan control iyo D anoo control xijinaya inaan D na qabto. markaa waxaad arkaysaa markaa si seerka shi ku wareegsan ayaa la iigu sameeyey. kadib waxaan dooranayaa fill ayaa ii dooran iyaga, waxaan sameynayaa inaan isku select gareeyo gebigoodaba. kadib waxaan sameynayaa halkaa colorka ayaan fish waxaan ka dhigayaa nan stroke-na sidiisaan ku deynayaa, waa kaa imika inoo soo saaray. kadib waxaan sameynayaa inaan xabad doorto, aan sameeyo right click aan idhaahdo, waxaan dooranayaa arrange transform baan tegayaa. kadib reflect baan leeyahay, reflect markaan idhaahdo copy baan leeyahay. kadib xabaddan ayaan soo qaadanayaa, waxaan sameynayaa markaa waan soo dhaweysanayaa. markaan qaabkan u soo dhaweysto waxaan doonayaa xabaddani inay cross la sameyso xabad kale. markaa waxaan sameynayaa inaan horta rotationkeeda saa u yara celiyo, kadib aan saa u soo noqdo. xaggan hoosena waxaan doonayaa inaan kala simo, xaggaa sarena inay cross yar ka sameyso ayaan u baahanay. markaa xaggan baan u yar noqonayaa taa hore. kadib waxaan sameynayaa inaan rotationka aan yar saa yara idhaahdo ama xaggan kale aan yar celiyo, kadib aan saa u soo saaro anoo saa soo celinaya, dan aan in yar rotationka ku sii celiyo ilaa markaa aan kala simayo. saasaan u yara wadwadayaa inta aan cross saxa aan la sameynayo, saasaan u soo celinayaa inay gudaha iga soo wada gashana ma rabo. markaan cross kaasa oo la sameeyo ee xagganna kaa ay xag cirifka kaga dhigan tahay ayaa waxaan sameynayaa inaan iyada doorto. kadib waxaan sameysanayaa horta centerkii seerka shan inaan raadsado, waayo haddii aan centerka dooran waayo wuxuu sameynayaa inuu iga khalkhaliyo. iminka haddii aan ku tuso oo aan intaan isaga doorto aan rotate toolkaygii tago meelaan centerka ahayn, haddii aan anoo alt xijinaya aan click idhaahdo, kadib halkan waxaan doonayaa inaan 5 minus gashado. minus markaa haddaan raaciyo kadib aan copy idhaahdo, marka saa la igu kala koobiyeeyo. haddii aan imika intaan saa isaga durkiyo aan control D la qabto saa idhaahdo waxaad arkaysaa gudaha ayuu iga soo gelaya oo iga khalkhalaya. marka waxaa qasab ah inaad raadiso centerka seerka shaa gudaha ku taala ee loo baahan yahay soo hesho. markaas aan soo celinayaa, kadib waxaan sameynayaa seerka shaan dooranayaa centerkeedu markaas saa dhibicda ay igu soo saaro ama aan soo dhaweysto ayaa waxaan sameynayaa inaan isagii ku noqdo. kadib aan rotate toolkii tago halkan. marka haddii aad saa u yara wadwado marka aad centerka dul joogto guideline yar buu ku soo saarayaa, ama waxaad sameyn kartaa inaad move toolkaaga ku noqoto seerka shaa doorato, kadib aad ellipse tool soo doorato. marka halkaa centerka ah aad dul dhigato ellipse yar, aad qaabka u dul dhigato, kadib aad centerka dul keensato centerkii seerka shaa. haddii aan imika kan kala doorto centerkii seerka shaa ayay dul taalaa. marka waxaan sameynayaa inaan kan doorto, kadib aan tago rotate toolkaygii, kadib aan saa u dul imaado centerkeedaasaan dul imanayaa. kadib altaan qabanaya click baan leeyahay 5 minus 7 gelinayaa, kadib waxaan leeyahay copy. markaa kadib waxaan sameynayaa inaan dib isaga durkiyo, kadib control
ayaan d iyo d baan isla xijinayaa marka haddii aad arkaysa iminka si sax ah ayuu igu raacay leadkii markii aan centerka la doortay marka haddii aad arkaysa iminka wareegii buttonka ahaa waynu samaynay sare waxa loo baahan yahay in inta sare aynu iska jarno waxaan sameynaa marka kanaan halkan dhiganayaa waxaan sameynayaa inaan soo kan iska delete iska idhaahdo seerka shayar doorto kadib shift iyo alt aan isla xijinayaa saanaan u soo weyneynaya kadib waxaan sameynayaa halka dot square oo aniga ku simay ayaad qaabka ugu simanaysaa waliba haddii aan control shift yara qabto in yar taasaan ku deynayaa kadib waxaan sameynayaa inaan isku wada select gareeyo gebigeedaba waxaan sameynayaa hadaba inaan soo dhaweysto qaabkaas oo kale aan soo dhaweysto aan space bar xijinayaan xaggan u yara durkinayaa kadib waxaan sameynayaa waxaan dooranayaa shape builder toolkaygi altaan qabanayaa minus baan ka dhiganayaa kadib xaggaasan kaga soo bilaabay waxaan doonayaa geesaha error ka baxay inaan iska saaro marka haddii arkayso qaabkaasu kaaga delete garaynaya waxaan sameynayaa marka inaan saa ugu soo wareejiyo ilaa aan ka dhamaystiro marka qaabkaas aad u wada dhamaystiraysaa waan yara dedejinaya muuqaalka si aan u dhameeyo marka markaad qaabka ugu dhamaystirtay shape builder toolkii waxaan sameynayaa marka inaan seerkasha aan iska saaro marka aan iska delete gareeyo maadaama cirifyada ay isaga kay haystaan kadib waxaan sameynayaa inaan kan select gareeyo haddaba waxaan sameynaa kuwa labada kale ku sii guda jira isaga un baa laga sii sameynaya marka waxaan sameynayaa inaan isaga right click idhaahdo kadib aan group idhaahdo haddana waxaan tagayaa edit waxaan tagayaa copy edit baan ku noqonayaa paste in front baan leeyahay kadib haddana shift iyo alt aan isla qabanayaa saasaan u yareynaya marka ilaa aan salka hoose ku fadhiisinayo qaabkaas ayaa markaa in yar aan sii yara celiyo waliba haddii aan soo dhaweysto kadib waxaan sameynayaa inaan shift iyo alt isla yar qabto aan yar saa yara celiyo halkaasaan ku deynayaa kadib xabadda kale adigaa sii samayn kara oo copy aan paste baad leedahay kadib waxaad sii yareynaysaa un skillka in bad gudaha sii gelinaysaa qaabkaas oo samaynaysaa fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe noo saar laakiin gudhiiri geliyo xifaalad qabtana commentiga hoose noogu reeb السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.